muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay title description tags. Waa muhiim inay muuqaaladoodu lahaadaan midaas oo suurto gelinayso inaad hesho dad badan oo kugu soo xidhmo. Dadka inta badankoodna ma aaminsana in ay midaasi jirto ama maba ogaba in uu title-ku iyo description-ku iyo tags ay qayb ka qaadanayaan in channel-kaaga uu koro. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida loo qoro title, description iyo tags ee loo isticmaalo muuqaalada YouTube-ka. Waxaanu ka bilaabaynaa midka koobaad oo ah title. waa muhiim title-ku waa midka u sharaxaya dadka muuqaalkaaga waxa uu ka hadlayo. Title-ku waa in uu ahaadaa mid yar oo si fudud lagu akhrin karo. Title-lada yaryar waxaa adeegsada inta badan YouTuberada caanka ah sida MrBeast, isagoo ka dhiga title-ladiisa 15 xaraf iyadoo si fudud uu ku helo views fara badan. sababtoo ah title-lada yaryar inta badan si fudud ayaa loo akhrin karaa oo qofka markii uu arkaba isla markii hore ayuu ka fahmayaa wuxuuna daawanayaa muuqaalka, midaasi oo suurto gelinayso in uu helo views fara badan muuqaalkaasi. Waa in aad ku ciyaartaa shucuurta qofka. midaas waxaan ula jeedaa haddii lacalaa oo kale aad ka dhigto title-ka mid cabsi leh, mid argagax leh iyo mid la yaab leh, dadku waxay isku dayayaan inay ogaadaan midaasi. tusaale yar haddii aan idin soo qaato, title-ka waxaad ka dhigaysaa waxaan sameeyey gaari. haddaba sidee ayaan u sameeyey, dhibaato ayaanan kala kulmay haddii aad dhahdo, amaba example kale haddii idin soo qaato tusaale kale, title-ka waxaad ka dhigaysaa ha isku daawan muuqaalkaani haddii aad naftaada jeceshahay. dadku inta badan waxay xiiseeyaan waxyaabaha argagaxa iyo la yaabka leh, waxayna isku dayayaan inay daawadaan muuqaalkaaga. Description, dadka inta badan ma aaminsana inuu description-ku faa'iido leeyahay, balse description-ka haddii aad u adeegsato keywords-ka muuqaalkaaga waxaad helaysaa views fara badan. waxaa kale uu faa'iido leeyahay description-ka inaad ku soo copy gareyso ama ku soo link gareyso muuqaaladaadii hore. haddii muuqaalkan aad soo dhigtay uu helo views fara badan, description-kan aad ku soo link gareyso muuqaaladaadii hore xitaa waxay helayaan daawadayaal. description-ka waxaa kale uu faa'iido leeyahay inaad ku sharaxdo muuqaalka waxa uu ka hadlay iyadoo qoraal ah. dadka inta badan waxaa jiro dad codka ku wareero. haddii aad ku soo sharaxdo muuqaalkaaga waxa uu ka hadlay, faa'iido ayay leedahay midaasina. tagisku wuxuu qayb ka qaadanayaa in muuqaalkaaga waxa uu ka hadlay si fudud lagu helo haddii aad tags u samayso. tusaale yar haddii aan idin soo qaato, haddii aad YouTube-ka gasho qaybta searching ku qorto sidee loo sameeyaa, waxaa kuu soo baxaya boqolaal sidee loo sameeyaa ah. si aad ugu duwanaato dadkaasi, muuqaalkaaga waxa uu ka hadlay ayaa tagiska ku qoraysaa, kabacdina waa soo saf garaynaysaa. YouTube Studio ayaa inta badan lagu samayn karaa. qaybta qalinka ayaa tagaysaa, qaybta hoose ee tagiska ayaa tagaysaa, kabacdina muuqaalkaaga waxa uu ka hadlay aad gelinaysaa. kabacdina YouTube-ka markii qofku uu search dhaha si fudud ayuu ku helayaa. tagiskuna waa muhiim inaad iska saxdaa. inta badanna tagisku dadku wuxuu ka caawiyaa haddii aad si qurux badan u qorto tagiskaaga ama aad tagiskaaga fara badiso YouTube-kaaga wuxuu helayaa views fara badan. tusaale kale haddii aad dhahdo tagiska sidee loo sameeyaa, besba haddii aad tagis ku qorto, markii la qoro tagiska sidee loo sameeyaa, wax walbaba muuqaalkaaga inuu kusoo dhexdarsamo ayaa laga yaabaa. midaasina waxaa sababayso tagiska. inta badan tagisku waa muhiim, waa inaad iska saxdaa. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku saabsan yahay. haadaa wasalaam, peace and love.